oo dee qaran baynu ahaynee qoladiina qarweysay qofkii qaldanaa ilaa qaran koodhan dadkoo dhan ma khaldanay qofkii qaldanaayo kolba qaar kicinayo war ma qolaad noqoteen meesha leen waynu wada lahayne waa masantahay wariye Cimraan horta waa bil barakeysan khayrkeeda Allah ina siiyo dibta waa heen inaga soo gaadhayna reer Hargeysa kamay soo gaadhine horta Ilaahay ha inooga gargaaro gaar ahaan intii ay hantidu kaga gubatay aynu inaguna la hayeen dushaynu ku eeganayne Ilaahay ha uga gargaaro horta tan aragtida gubashada suuqa waaheen ma kala laha mucaarad ma kala laha muxaafid arintana arintii la mucaarad iyo muxaafid la isku qiimeeyay horta ma horena waan uga hadlay waan arkaa hadallada yar ee la isku tuurtuurayay ya original ya lahaa iyo caynkan iyo anaga wax naga gubteen taa horta waan maqlaa waana arin aad looga xumaado runtii arintan oo kale dalalka jaarkeena soo gurmaday marka dadkii ay u soo gurmadeen hadaladooda ay hoos u eegaan wax kale inagu qiimeynayaan waxaan leeyahay horta mucaarad iyo muxaafidtan ma kala laha fasiraada noocaasana laga saaro meesha talada hal la toosiyo mucaarad iyo muxaafidna kama wada taliyaan xukuumad baa jirta mas'uuliyadi ka saaran tahay la doonayo inay ummadeeda gubatay wixii qaadaan la keenay iyo qorshaheegaba in la diyaariyo laakiin hadii la yiraahdo anaga reer hebelaya anaga reer hebela de taasi habeeneedu horta aan daawanaya aad baan uga xumaaday runtii iyo reer hebel ma ayaa deganaa iyo hebel hadhiso iyo dawladda hoose hadhiso iyo waxyaabahan aan maqlay runtii waxa aad looga xumaado anigoo korta ka raagay bahasha Afriida awowgay saddexaad baa tirin jiro daanu horta waaba ka raagay Afriida iskuma dayo iska daabaa liigu laakiin markaan saa u eegay saddex qodob ay ku soo dhacayo haddaan yar jagac ka siiyo oo ku saabsanay dadkani reernimada iyo wax u nisbaynaya dhibaatada guudayna soo gaadhay oo dee qaran baynu ahaynee qoladiina qarweysay qofkii qaldanaa ilaa qaran koodhan dadkoo dhan ma khaldanay qofkii qaldanaayo kolba qaar kicinayo war ma qolaad noqoteen meesha leen waynu wada lahayne waa meel Soomaaliland dhibaatadeedii gaadhay waa suuqii saddexaad ee geeska marka dhinacaynu ka eegno wayna wada taabanaysa laakiin in loo qolo loo nisbeeyo oo waliba xisbi loo nisbeeyo kuwa kalena waxaan leeyahay waliba mid kale ku yar daba daro waxaan leeyahay malaha way idin qaldeene qayla dhaanta baxaysay qarankeena waa heen qurxintiisa iyo qarankeena khusaysa ayuu qorshaheenu ahaaye war ciidan ku qancayni dawaa in la iska qabtaa in qolo loo nisbeeyo maaha waa in si guud la iska qabto la yiraahdo adeer meeshani maad garanaysa laakiin magacyo kale la baxaan qolyaha qarka kala soo jeediyo masiibo waxyaabo kale oo ugu abtiriyaan loo baahna in meel loogu soo jeesto way waxaan aad ugu mahadnaqay saaxiibkay Cabdikariim mooge anigoo meeyara oo wasiir ku xigana saaxiibaan ahayn anigoo meeyara oo na wasiirahayna saaxiibaan ahayn anigoonan meeyarahayn oo wasiir yahayna saaxiibaan ahayn anigoon meeyarahayn isaguna una wasiirahayna saaxiibaan ahayn maantana waa meeyarnaki waxaan aaminsanahay oo ku kalsoona shaqadiisa isagoon loo tilmaamay inuu hanan karo hadii faraha looga qaado laakiin barnaamijku waxa weey waa la qojeynaya deynta laakiin arintan laga hadlayaan ku dhameeyay arintan laga hadlay leeyahay Cabdikariim moogaha loo daayo waa Cabdikariim mooga isaga qirayo oo kale arintan way naga weyn tahay qayla dhaantii ugu horeysay isaga diray intaanu madaxweynuhu hadda soo maad fahmin marka isagaaba sheegay arintani inay arintii uu qaban kariye ka weyn tahay oo ay u baahan tahay in la qabto isaga iska daayay Soomaaliland bay ka weyn degmooyinku qayla dhaanu diro wada ogeyd qaranka madaxweynaha ka hadlay marka in la yiraahdo Cabdikariim ha loo daayo iyo maxay ha loo daayo hay'adaha dawliga sharciga ka leeyahay xeerar bay leeyihiin dastuur bay lagu kala socdaa wasaaradda hawlaha guud qayb bay leedahay masar balaanka iyo meeshaas loo nidaaminayo wad garsoon maaha hadda iyaga iskale qurxintii meesha iyo nidaaminteedii dawladda hoosaale amniga iyo arrimihii dawladda wasaaradda dakhliga iyo waxa le ciidankii amniga dendemiska iyo cid kasta oo ka qayb qaadatayna madaxweynaha uga mahadnaqaya gudidii loo xil saaray ee qiimaha lahayd waxaan islaahay qaadhaankaasi waa qaadhaan u baahan in laga wada qayb qaato oo la doonayo inaynu u hagar baxno dawladkaasi waxa uu ahaa duqii hore deegaanka magaalada Boorama Salebaan Xasan Xadi oo maanta waxaan ka weydiinay waxa uu kala socdo gubashada suuqii waaheen ee toddobaadkeen soo dhaafnay ku basbeelay magaalada Hargeysa.